hawlo ku saabsan samafalka aanu qaabilsanahay oo ah hay'adda agoomaha ama kaamka weyne agoomaha ee ku yaala halaya ama ninba sida u yaqaano wadada berbera tagta marka ka la dhaafo cidaaleela cidii berbera ku socota ama aagaga si martaaba way aragtaa walaba kaamo waaweyn mid waxa la bilaabay 2002 alifkii oo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayo u dhagax dhigeedii lahaa midna waxa uu imika dhamaystirmay 2015 kan aynu ku jirno November 7deedii oo isla madaxweynuhu u dhagax dhigeena lahaa furitaankiina uu lahaa labadaba madaxweynuhu xafiiska samafalka wuxuu u sameeyay dhammaan wixii ku saabsan hawlaha samafalka danyarta agoomaha inta liidata iyo xukuumaddu inay isku xidhnaadaan taasina waxay ahayd ujeedada uu madaxweynuhu ka lahaa in uu jiro cid u qaabilsan danyarta oo u soo ogaata hawlaha danyarta isagoo madaxweynuhu danaynaya inuu danyartiisa taakuleeyo isla markaa marwada madaxweynuhuna ay aad iyo aad u danaynayso iyadoo ah qofka ugu sareeya ay hoos yimaadaan dhammaan agoomaha iyo dadka tirsan sababta aan shirkan jaraa'id u qabtay waxa ay tahay horta waxaan Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ayaan u mahadnaqayaa nabadgelyada ina siiyay barwaaqada iyo baraaraha aynu dadka kale ee jaararkeena kaga duwanay ina siiyay ayaan Ilaahay uga mahadnaqaynaa haddaanay Soomaaliland nabad ahayn haddaanay dawlad wanaagsan lahayn haddaanay hogaamiye wanaagsan lahayn kumay soo hirteen Kuwait iyo dalal kale oo kamid ah oo walaalaheena ina caawiya waxa la inoogu soo hirtay waxa la inoogu yimid waa dawlad wanaaga iyo nabadgelyada kaamka waxa loo sameeyay agoomaha caruurta agoomaha ah oo waliba agoon oo kaliya laguma daayay hay'adaasi waxay hoos timaada xafiiska samafalka waa hay'ad dawliya ma aha NGO ma aha hay'ad cid haysato mana aha NGO-yada sida gaarka ah u shaqeeya waa hay'ad xukuumadda ka tirsan oo waliba gaar ahaan xafiiskan samafalka u qaabilsan hawlaha samafalka waxa ay hay'adaas samayso oo aan xafiiska samafalka ama dawladdu ogeyn ma jirto marka ugu horeysa waxaan u mahadnaqaynaa Ilaahay ka sokow walaalaheena Kuwait ay nagu caawiyay mashruuca aad iyo aad qiimaha u leh oo maanta in badan oo dan yar ay ka faa'iideysatay Soomaaliland qurux iyo muuqaal ka sokow marka laga yimaado wax badan u faa'iideeyay dadka agoomaha ahaa waxaan kaloo u mahadnaqaynaa hay'adda African Relief Committee oo ah hay'adda fulisay hawshan gacantana ku haysa oo ay madax ka yihiin inama reer Soomaaliland oo ka yahay Ibrahim Goore oo ah gudoomiyaha guud Cabdiqaadir oo isna ah gudoomiyaha u qaabilsan agoomaha Boorame iyo Salmaan oo isna u qaabilsan hawlaha maamulka ee Hargeysa saddexda inan Ibrahim Goore gudoomiye u yahay aad iyo aad baan uga mahad celinayaa hawlaha fiican ee ay Soomaaliland ku kubcinayaan ee ay doonayaan dadkooda inay meel walba albaab walba u garaacaan siday ku bilaabatay agoomahani waxay ahayd waxa la igu casuumay sanadkii 2011kii Djibouti oo ay jirto kaam agoomeed oo sidan oo kala ah laakiin markii hore aan islahayn kaasa qurux badan markii aan keenay la dhisin laakiin keenu ka wanaagsan yahay ayaa la igu casuumay furitaankii dawladda badan isugu yimaadeen waxayna wada sheegeen in ay doonayaan Soomaaliland ka sameeyaan waxaan hadda kan oo kala noo sameeynaysan aad iyo aad baan idinku soo dhaweynaynaa haddii xukuumaddiina ogolaato waanu idin sameeynaa bay yiraahdeen madaxweynaha uu wada nimid madaxweynuhu daqiiqadihiiba Ilaahay miisaanka xasanaadka ugu daro ajarka ka soconayo dhan isaga leh daqiiqadiiba uu noo fuliyay waliba madaxweynuhu wuxuu amar ku bixiyay in danguud la siiyo maadaama ay danguud ku shaqeynayaan iyaga door biday in dadka reer Soomaaliland si ay uga faa'iideystaan ay meel iibsadaan sidii baanu meesha ku iibinay
iyadoo saxiixii koobaad iyo hawshii koobaad xafiiska samafalka uu la fulinayay madaxweynuhu ku dhagax dhigay hawshii ku socotay bilow ilaa dhammaad waxaanaan la ogeyn xafiiska samafalka madaxtooyadu aanu la samaynin aanay marnaba ku dhaqaaqin meesha horta waxa maamulkeeda waxaa haystaa walaalaheena carabta aba haysata inamada reer Somaliland iyagu maamuladan kale hayaan laakiin haday tahay maaliyada meesha lagu isticmaalo haday tahay kharashaadka haday tahay waxyaabaha soo dhan sanadkiiba marbay Kuwait oo dad u soo dirtaa marka waa hawl iyaga ka dhaxayso cid Kuwait u joogta ayaa maamulka iyo dhismaha iyo xataa Soomaali ma dhisan masaariba dhistay sidaad ka aragtay warshaday leedahay warshadii roodhiday leedahay warshadii waxay leedahay furniture-kay leedahay tababaray leedahay agoomaha ka soo koow waxyaabo badan ay leedahay beer weyn bay leedahay magaalada imika loo iib keeno waxa kale oo jira dhakhtarka international-ka ah ee ku yaala isna ambassador sokadiisa isna hay'adda leh waxa loogu talagalay wixii ka soo baxa in agoonta lagu daryeelo dhammaan hawlahaas oo dhan 365 agoon ah ayaa ku jirta oo ka faa'iideysata marka laga saaro hablaha oo imika la furay oo iyaguna ay galayaan dhawaan hadii alla ka dhigo ardayda lagu hayaa waa boarding way seexdaan maalinta khamiista ah jimcaha ayay eheladooda u yimaadaan basas baa soo qaada basas baa celiya waxaan jecelahay dhammaan meediyaha inaan maalin meesha idinku casuumo qolqol aad u gashaan hawsha meesha ka socota aad aragtaa madaxweynuhu wuxuu fariitii u dambeysay November 7 ayuu furay meeshu sidaas ayay u tahay meel agoon lagu hayo Kuwaitna waxay ugu tala gashay in ay muddo hayso muddada kadibna ay isbixiso sida tan Djibouti-ba muddo loogu tala galay marka inagu waxaynu nahay dal aan la ixtiraafin baynu nahay dal aan waxa soo dhan qaabili karin baynu nahay ilaahay ma keenay haday maanta inagu soo baxsato ay dhibaato hor la noqonayso marka hawsha ay inaga hayso agoonka kaliya $270 baa bishii ku baxday agoonka kaliya shaqaaluhu 300 ka badan shaqaalaha jooga marka la isku wada dardaro Somaliland faa'iido weyn bay u keentay shaqaalayn bay u keentay agoon la dayactiray u keentay qolalka agoomuhu seexdaan guriyaha mala dadka qaar baan ayaan helin hadaa iminka madbaqooda gasho cuntada noocan oolin ma jiro agoontaas sida loo hayo iyo hawsha meesha ka socota Ilaahay subhanahu wa ta'ala abaalka banaadamku ma guday xukuumaduna way og tahay abaalka Ilaahay bay ka heli doonaa waxa dhacday hadaba meesha caynkaas maanta muuqaal quruxeed leh ee dadku u dalxiis tagan marka laga yimaado agoomaha sida u dhisantay u samaysan tahay beerta weyn ku taala sida loo kobciyay iyo sida loo sameeyay iyo sida loo ilaaliyo iyo meesha nadaafadeeda iyo sida tay bilic u soo hoysay Somaliland marka sida hore uu sheegay agoomaha laga yimaado meeshaas waxay naga haysaa hawl aad iyo aad u baaxad leh masaajid weyn bay leedahay oo caruurta quraanka lagu baro oo imika ay wada xaafidal quraan caruurtii noqdeen waxay leedahay meel ay caruurtu ku ciyaaraan caruurta sida loo hayo waxaan jecelahay meediyu maaha inuu arrimaha bulshada ka dhex baxo siyaasadda inta badan u badantii laakiin waxaan jecelahay inta tagtaan inaad soo aragtaan qolqol u gashaan bal ay idinku marka anagoo idin sheegin aad idin ka sheekaysaan mashruuca inta la eeg aanu malaynaya 25 milyan inay ku baxday Somaliland magaca iyo sharaftaba u soo hooyay dadkeenu had iyo jeeraale waa oral society waxa la yiri baa ku badan qofka banaadamka isagoon ogeyn waxan wax ku baxay iyo sidoo yahay iyo waxa loo wado ayaa dacaayad had iyo jeeraale laga fidiyaa horta meesha waxaan u sheegay ummadda reer Somaliland inaanay NGO ahayn sida dadka qaar u yaqaanaan oo moodeen inay tahay NGO meesha benefit laga helo maaha NGO waa hay'ad xukuumadda ka tirsan waa xukuumad ilaa xukuumadda Kuwait iyo xukuumadda Somaliland ayaa hawsha ka wada socota xafiiska samafalkuna xukuumaddu uu qaabilsan yahay marwada Somaliland waa qofka marka madaxweynaha laga yimaado gacanta ku haysta taakuleynteeda agoonta ilaalinteeda ogaanshaheeda ka warhaynteeda marwada koobaadna waa qofka madaxweynaha ku xigta ee hawsha sida baaxadda leh aan aad iyo aad madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland uga mahadnaqayo Mujaahid Axmed Maxamed Axmed Siraayo iyo marwada koobaad Aamina Sheekh Maxamed Jirde oo ah runtii qofka koobaad iyana aad iyo aad haday
taakula tahay la garab taagan xafiiska samafalka wixii hawsha lagu dhisayo ee dibadda uga yimaada cashuur dhaaf baan u sameynaa waxaan aad iyo aad halkan uga mahadnaqayaa wasiirka maaliyadda Marwe Samsam Cabdi Aadan oo yara cashuur dhaaf waxa la waxay u baahdaan si degdeg ah ugu sameeyso marka aan u gudbino marka waxaan sheegayaa inamada reer Somaliland ee guura kow ka yahay in ay Somaliland baal dahab kaga jiraan ay ahayn aad uga xumahay laakiin waa waxyaabaha dhaliisha saxaafadda aan halkan uga gudbinayo aad soo deyseen dadkaasi waxa la wax ay ka cabanayaan ma jirto waxa jirta waliba si gaar ah markaan u sheego dadka jaarka ah halka waxa u badan aan xafiiska qofka gacanta ku haysaanahay koobaad qof kaliya ma shaqo geeynin meesha marka tagtaan wada wareysan doontaan cidda halka u badan ee shaqaalaha ka ah ee meesha joogta waa agagaarka xaafadda halaya eeriyada inta degan ayaa u badan xaqna way u leeyino dhariba nin xiga kala la faxay Soomaalidu tiraahdaa haday shaqaalaha hoose tahay iyo haday kuwa maamulada tahay wixii laga qayb gelin karo inamadana waan u sheegnay iyaguna way ku camal faleen waana nu sheegaynaa waayo dhaliila soo baxay aan jirin oo dusha inamada laga saaray waxaan soo saari doonaa liiska dadka halka ka shaqeeya si loo garto ciidan cabanaysa inay tahay cid ugu badan cid halka mudaharaadka ka dhigtay waa ciidaha ugu badan ee meesha ka shaqa hadii ciidun ka shaqeyso shaqaalaha ka shaqaaleeyay xaq bay u leeyihiin ummadda reer Somaliland wixii ay ka cabanayaan dal dimuqraadi ah inuu nahay madaxweyne wanaagsan bay leeyihiin in ay sheegaan laakiin waxa haboon xafiiska samafalka way og yihiin ilaa reer Somaliland way og tahay in hay'adaas ku xiran tahay inay noo yimaadaan hadii ay ka cabanayaan Soomaalida meesha joogtiyo Carabtaba xaq bay u leeyihiin dadku way caban karaan malihin lama caban karo inay soo gudbiyaan oo noo soo gudbiyaan oo inay yiraahdaan waxa iyo waxa jireeda wax ka qabtaan hadii aan markaa wax ka qaban karin weyn xaq bay u leeyihiin mudaharaadaan laakiin inta waliba la mudaharaaday mudaharaadkii oo socda loo diray Kuwait marka waxa la dadka caynka sameeyay xukuumaduna kagama harayso way marka adigoo halkan ku mudaharaaday aad hay'adii Kuwait u dirto macnaheedu wax weyn Soomaaliland nabadgelyo kama jirto markaad ka timaado ilmo lagu shaqaaleeyo iyo waxaad adigu dan gaar ah ka doonayso laakiin Soomaaliland nabadgelyo kama jirto nin kale intuu mudaharaad kamarad ku duubay waanu haynaa cidii dirtayna waanu haynaa cidii ay u direen way noo soo direen Kuwaitna jawaabteedu waxay tahay haddaydan de mashruuc inta la ka bixi kareynin de aanu faraha kala baxo dadkiina sida leeyahay marka dhibaatada inta la dadka geysanaya ee agoomo masaakiina oo halka maalin walba hooyooyinku iyo ayeeyooyinku haya ay u ducaynayaan cidii keentay iyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ba aad iyo aad baan uga xumahay dadka waxa sameeyay waxa kale oo aad uga xumahay runtii diintu waa meesha kaliya ee loo irkado waxa igu maqaala ah in masaajid kamida masaajidada Hargeysa waliba masaajid ku yaala Niyo Hargeysa lagaga hadlay arinta maalin mala Jimcaha runtii quraankeenu wuxuu sheegayaa hadii qof faasiq wax ku keeno waa inaad iska hubsataa ama qof si kale wuxuu wada haduu wax ku keeno waa inaad iska hubsataa waxaan filayaa culimadeenu inta ma moogana laakiin cidii halka ka hadashay si khaldan wax loogu sheegay waxaanu leenahay sida la idin sheegay way ka duwanta agoon ba meesha lagu hayaa waxa kale oo aan idaacada raadiyo Hargeysa ka dhageystay wadaad isna sakada ka hadlayay oo isna soo dhaxgaliyay waxaan leeyahay wadaadada runtii culimada afkay inuu ku dhacmo jeceli sharaf bay naga mudan yihiin midnaan bay naga mudan yihiin waa kuwa wacdiyaya waa kuwa diinta loogu irkado laakiin waxaan leeyahay hubsada wixii la idin keeno maaha in media ka sii deysaan waxaydan ogeyn na weydiiya hubsada wadaadadana waanu u tagaynaa meel ay joogaanba waraanu ka soo dhaadhicinayna sida ay tahay hadii marka iyagu gafka ay galeen iyaga umada ka raali gelin doona waayo waa war baxay waana anigu dhagayga ku dhageystay inta markaan ka imaado meesha marka agoomaha laga yimaado waa meel weyn caruurta agoomaha 5 jir 4 jir ilaa inta intermediate ayaa la qoraa waxa loogu talagalay meesha ilaa secondary marka gaabka inta la eg markuu banaanaaday maaha inamada reer Soomaaliland ee gooro iyo meekeen barnaamijka Kuwait ba barnaamijka keentay Kuwait waxay u keentay maadaama hadiye jeeraala mashruucaad aanay ku talagalin waligood inuu socdo daa'im noqdo
inay isbixisaan baanu doonaynaa aqaladan iska maran private ka dhiga maha meesha agooma waa qayb ka duwan oo ka xidhan si cidii doonaysa manhaj wanaagsan bay leeyihiin tacliin wanaagsan bay leeyihiin cidii doonaysa private ka inay iska bixiso waliba lacag ka jaban meelaha kale inay gashan karto dadka ardayda keenay ama tijaarada ama cid kale ha ahaadaan waxa loogu talagalay inkastoo ay wax ka taraysa ma ahayn waliba dadka jaarka ah si gaar ah ee imika hadlaya si gaar ah ayaa qiimeyn loogu sameeyo aad loogu hoos dhigo wax aan macna lahayn ayaa laga qaadaa waxa jira marka agoomaha laga yimaado dad badan oo dan yara oo ku hayaan meesha oo bilaash oo aan lacag laga qaadin marka inta imika ka qaylinayaan waxa weeyaan meeshii waxa laga dhigay baa mushtar meeshii tujaar baa ku shaqaysata meeshii agooma ma aha ayaa imika warka ku baxay warbaahinta u yahay waxaanu cadaynaynaa inaanay meeshaasi tujaarad ahayn inaanay meeshaasi ahayn meel NGO inaanay meeshaasi ahayn meel lagu shaqaysto iyo wax hadii la danaynayo dadkeenu had iyo jeer alle meesha lacag bay ka eegaan inamada reer Soomaaliland xagxaganaysaan wax lacag shaqo ku leeyin totally ma jirto iyo wax iyaga jeebkooda ka baxa mooyee mushaar bay ku leeyihiin laakiin wax dhaqaale ay ku leeyihiin ma jirto account bay leedahay Kuwait baa maamusha iyaga audit-kooda u soo dira waxay ugu tala galeen hadii ay ka go'do dawladda Soomaaliland bay dib ku tahay mana ka fargarayn karnaa meelaha soo kale nagu soo wada baxaan in iyadu isbixiso beer baa loo sameeyay beerta suuqa laga iibgeeya beerta account bay ku dhacdaa qof shakhsi kuma dhacdo dhakhtarka waxa loogu tala galay dan yarta dhakhtarka waxa lagu daweeyaa dad badan oo dan yara oo anaga iyagana aanu ognahay oo ugu tagno ku booqnay oo bilaash lagu daweey marka laga yimaado qofkii private iska socday doonaya inuu isagu iska bixiya haysta intaasoo qof baa lagu qalay oo bilaash lagu qalay intaasoo qof baa dan yara haday tira waxba ma haysano laga sii loo daaya marka waxa loogu tala galay inta yara ka soo baxda in account la dhigo ay isku bixisa halkan lacal hadii Kuwait ay joogsato imika budgetkii agoomaha inta dambe la qori lahaa miisaaniyadii looma hayo oo Kuwait miisaaniyadii wali ma soo dirin haday taasoo kala joogsato dib meesha way joogsanaysaa si aanay u joogsan in inta lagu sii dabaro inta la bixinayo fiiga iskuulka laga bixinayo ee dadka private-kiina ma ku dhacaysa jeeb Ibrahim Gorona kuma dhacayso inamada kalena kuma dhacayso laakiin waxay ku dhacaysaa account-ka loogu tala galay